Subtitle-ka fiidiyowgani waxa uu ahaa kooxda waayaha cusub oo hees labaad soo wada. Haddaba intaynaan u gelin heesta labaad ay soo wadaan faahfaahinteeda, kanaalkan subscribe noo saar, like-na taabo si uu dad badan u gaadho fiidiyowgani, share gareena haddii aad awood. Haddaba kooxda waayaha cusub baryahan dambe waa kooxan iska wada naqaano islamarkaana caan ku noqotay heestii dislike-ta badan la saaray, laga yaabaa inay gaadhay ilaa 100,000 oo dislike. Haddaba heestaas ayay ku soo shaac-baxeen. Waa heestii no nadhaha. Waa hees ay u qaadeen dowladda Soomaaliya haatan ka talisa, islamarkaana ay ugu hoga tusaaleynayeen arrimo badan oo ka qaldan. Haddaba waxay sheegeen inay u caal waayeen dowladda, islamarkaana ay xataa barihii bulshada si ba'an uga weerareen, islamarkaana ay doonayaan inay heesaha ku sii badiyaan si ay iyaguna u ataagaan, islamarkaana uu yahay hadafkoodu inay ridaan dowladdaaba oo ay dhulka la simaan. Haddaba waayaha cusub waa kooxuu ka mid ahaa fanaanka weyn ee Dalmaryare, kaas oo markii dambe sheegay in uu ka baxay sababo la xidhiidha heesta ay soo qaadeen ee no nadhaha. Iminkana waxay soo wadaan hees la dhaho Dandaan. Heestaana waxaa sameeyey oo bartiisa Facebook soo dhigay Master Shinaakhyar oo ah guddoomiyaha kooxda waayaha cusub, islamarkaana qaba gabadha soo qaada heesahaas ee Filis Cabdi. Filis Cabdi waa gabadha uu qabo Shinaakhyar. Shinaakhyarna waa nin abwaan ah oo guddoomiye u ah kooxda waayaha cusub. Haddaba heesaha badanaaba ay qaadaan waayaha cusub waxaa sameeya Shinaakhyar oo ah guddoomiyahaas aan idiin sheegay ee waayaha cusub. Haddaba ila daawo heesta.